السلام عليكم. مقعي عبد الله عبدي waxaan ahay barodigo ka shaqeeya Redigo LC ma haysataa foomka loo yaqaano I-485 ee adjustment of status oo hakad ku jira sababtoo ah waxaad ka timid mid kamid ah dalalka ku jira travel ban. Haddii jawaabtaada haa tahay muuqaalkan adigu ku qosaya fadlan si fiican ula soco. Waxaan bixin doonaa fursad dacwo oo loogu talagalay muwaadiniinta ka soo jeedaan 19 kasdal ee ku qoran travel bank uu madaxweyne Trump soo saaray si ay ugu doodaan hakadka lagu sameeyay habeynta iyo go'aaminta codsiyadooda I-485 adjustment of status. Hakadkaas waxaa sababay qoraalka cusub ee USCIS hadda soo saartay labadii bisha December 2025 oo loo yaqaano BM-602-Ebrhal-92. guud ahaan waxaan aaminsanahay in hakadkan guud ee USCIS ku joojisay habeynta iyo go'aaminta dhammaan codsadayaasha ama codsiyada I-485 uu sharci dar yahay sababtoo ah wuxuu ku saleysan yahay asal qaran national origin isla markaasna USCIS aysan u lahayn awood sharci ah oo ay ku joojiso ama hakad guud ay ku sameyso I-485. waxaan rajeynaynaa inaan gudbino dhowr dacwado oo koox ah si aan u yareyno qataraha la xiriira awoodaha ama doodaha dawladda ee ku saabsan goobta ay ama dacwada loo gudbin doono proper venue. fadlan isdiiwaangelintu way socotaa waxayna ku eg tahay 26 December 2025. sidoo kale qofka isdiiwaangelinaya waxaa muhiim ah inuu buuxiyo shuruudahan aan sheegi doono. sidoo kale dacwadan waxaan xareyn doonaa ama gudbin doonaa qiyaastii 9 bisha January 2026. shuruudaha qofka laga rabo waxaa weeye inuu soo buuxiyo intuusan iska diiwaangelin dacwadan. marka hore waa qofka waa inuu ku sugnaadaa dalka Mareykanka. sidoo kale waa inuu already buuxiyey I-485 oo pending uu yahay. sidoo kale uu haysto ogeysiiska cadeynaya. codsigu waa sidoo kale waa inuu kamid ahaadaa dalalka travel bank uu saameeyay ama la saaray. waxaana kamid ah dalalka Soomaaliya, Burundi, Burma, Afghanistan, Congo, Cuba, Eritrea, Haiti, Iran iyo wadamo kale oo mataqaana badan. waa midkood inuu kasoo jeedaa qofka. sidoo kale qarashaadka qofka kaga bixi kara group lawsuitkan waxaa weeyaan waa 3,000. 3,000 ma ahan qoyska haduu ka kooban yahay qof walba qoys kamid ah laga rabo 3,000. qoyska qofka u horeeya baa laga rabaa 3,000 which yani primary applicants. qarashkaas dhanna wuxuu daboolayaa inta kale qoyska ku hoos jirta. sidoo kale lacag bixintu waxay noqon doontaa ama qarashaadka sida loo bixin doono waxay noqon doontaa marka u horeysa waxaad horumarin doontaa $1 oo shaqada lagugu bilaabo. sidoo kale 2,000 soo hartay waxaad bixin doontaa bisha 2 ama February 2026 iyo wixii ka dambeeya. lacagta dib loo dhigay 2,000 waxaan u tixgelinay because of wax hadda soo bax weeyaan qorshahan cusub ee USCIS. marka si dadka aan u siino chance mataqaana ugu diyaar garoobaan darteedan dib ugu dhignay. qofkii awoodana inuu bixiyo ama rabo inuu bixiyo lacagta 3,000 hal mar still yani wax xadidaya ma jiraan uu bixin karaa. sidee qofka raba inuu iska diiwaangeliyo dacwadan ama dacwadahan aan rabnaa gudbino oo sidoo iskaga diiwaangelin karaa way fududahay. fadlan booqo website-keena redigolowlc.com kadibna waxaad heli doontaa foomka ku sahli lahaa inaad iska diiwaangelisid dacwadan. aad iyo aad baad u mahadsantahay daawashada muuqaalkan.